maanta oo kale 12 Oktoobar sanadkii 1954 waxay ahayd maalintii ugu horeysay ee la gardaadiyay ama la banaan bixiyay sidii caruur la jecel yahay calanka Soomaaliyeed waxa uu calanku qaangaar noo noqday oo lagu hiisay isku taagay markii aan xornimada helnay sanadkii 1960 calanka aan caawa u dabaaldegayno iyo dawladnimadu waa walaalo waliba waa mataano calanka aan caawa u dabaaldegayno oo dawladnimada mataanaha la ah waxa hooye u ah xornimada halgankii dheeraa ee taariikhdeena qoran laga soo bilaabo Axmed Gurey ujeedadiisu waxay ahayd inay Soomaaliya dawlad noqoto haddii marka aad maqasho ama taariikhda ka maqasho gobonnimo ama xornimo midnimo calan iyo hashi maandeeq intaba waxa loola jeedaa dawladnimada Soomaaliya calanku waa astaanta adduunyadu nagu taqaan ama nagu aqoonsatay waa astaanta ay adduunyadu ku aqbashay inaan nahay qaran jira oo madax bannaan inaan nahay dawlad inaan leenahay dad madax iyo dhul la aqoonsan yahay taas macnaheedu waxay tahay haddii dawladnimada la waayo calan jiri maayo xornimana jiri mayso midnimana jiri mayso calanka dawladnimada isaga dhalay laakiin dawladnimada ayaa lagu ilaaliyaa calanka waayo calanku dawlad la'aan ma jiri karo macnuhu waxay tahay marka calankaas iyo dawladnimada ayaa isku dhex jira calankaas aad u jeedaan oo quruxda badan ma ahan mara caadi ah macna weyn ayuu ku fadhiyaa waxa uu taagan yahay xornimadeena waxa kale uu taagan yahay midnimadeena Soomaalinimo wax kasta oo aan u baahanahay sida daraadeed waxay ku dhex jiraan oo ay tahay in laga dhex raadiyo dawladnimada sidaas daraadeed ayaa la rabaa inaan dareeno in dhaqaalaha la kobciyo calanka inooga baahan in dalka deynta naga cafiyo oo laga shaqeeyo sidii lagu gaari lahaa calankan ayaa na faray in shacabka loo helo adeeg caafimaad iyo waxbarasho tayo leh calanka ayaa na faray in la dhiso ciidan tayeysan oo lagu ilaaliyo amniga iyo midnimada Soomaaliyeed calanka aan hor taaganahay ayaa iyadana na fartay in danta guud laga wada shaqeeyo oo la iska ilaaliyo in dawladnimada laga dhex raadiyo dan gaar ah iyadana waa wax uu calanku naga rabo sidaas daraadeed ayaan caawa waxaan leeyahay qof walba oo Soomaaliyeed qof walba oo naga mid ah meel walba oo uu dalka ka joogo ama ay ka joogto mucaarad iyo muxaafid oo fursad u heshaa inuu qarankiisa matalo ama ay qarankeeda matasho waxaan taariikhda ku gali doonaa sida aan u ilaalino qarannimada madax bannaanida sida aan u ilaalino hantida qaranka ugana fogaano musuqmaasuqa sida aan u ilaalino midnimada sida aan u ilaalino xuduudaha badda hawada iyo dhulka Soomaaliyeed